السلام عليكم كسر دواada daawayaal dood gaar ah oo ku saabsan adeega koronto ee magaalada Muqdisho oo ay bixiyaan shirkadaha kala duwan ee koronto ee ka jira caasimadda doodan waxaa qabanaysa warbaahinta joog waxaana marti ku ah madax wata shirkadaha Beko Muqdisho Power iyo waliba Blue Sky intiina badan sida aad la socoteen baraha bulshada soo dhaafay qayladana ka jirtay oo ku aadana kororka qiimaha bishii la soo saaray marka laga hadlayo shirkadaha korontada arimahaas iyo wixii dhaliile ah heesan arimahaas ay barnaamijka xoogiisa aan ku jixjixi doono oo aan ku faaqiidi doona doodan fursad waxa la idin siin doonaa in wax allaale wixii su'aalaha ee maskaxdiina ka guuxaya iyadoo la idin ka tifaftirin aad si toos disaan madaxda ka kala socota saddexdaas shirkadood sidoo kale tolgoob joog daawadayaasheeda iyo dhageystayaasha iyo akhristayaasheeda ku xiran waxa jira su'aalo ay ka soo weydiiyeen baraheena bulshada maadaama baahinay iyana waan dadka doonaa marka hore waxaan ku bilaabanaynaa bal si guud horumarka iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo mareen shirkadaha korontada ka jira magaalada Muqdisho shirkadood aan ka rajeynaa min 2 daqiiqo mid walba inay ku soo koobto heerarkii kala duwanaa ee korontada magaalada Muqdisho ee ka soo martay ka shirkad ahaantooda halka la joogo iyo meesha ay higsanayaan waxaan ku bilaabayaa dhankeyga midig fadhiya Cabdinuur Cali Xuseen marka koowaad waxaan rabaa inaan horta u mahad celiyo dadweynaha Soomaaliyeed ee doodan ka qayb galaya marka xigana aan u mahad celiyo idaacadda Goobjoog oo soo diyaarisay soona qaban qaabisay doodan haddii aan u soo laabto su'aasha korontada dalka waxay soo martay marxalad kala duwan markii uu dhacay burburkii dawladda Soomaaliya waxaa dhacday in gabi ahaanba meesha ay ka baxday korontada dalka waxaa jirtay muddo dalku u ahaa koronto la'aan oo cid koronto ku dhiiran karta ama koronto samayn karta ama ka fikri karta aysan jirin nasiib wanaag markii xogaa markastoo la soo kabto xogaa wax isbedelaanba waxaa bilowday markastoo nolol soo abuurantaba waxaa bilaabanayay baahida loo qabo korontada shirkad yar yar oo matooro meel gooniya dhigtay ayaa markii hore baash ku bilaabatay oo muddo kooban daara waxaan xasuusanaa iyadoo korontada la daaro 4 saacadood waxaan xasuusanaa iyadoo 6 saacadood la daaro waxaan xasuusanaa iyadoo 18 saacadood la daaro oo muhiimadda u weyn ama waxa u weyn ujeedadii ay tahay koronto ma heli karaa 4 saacadood markii xogaa isbedel fiican uu yimid oo teknoolajiyada madax badan iska bedeleen oo telefoonadii iyo wax badan baahi badan ay timid waxaa lagu khasbanaaday in koronto 4 saac la helo shirkadka waxay ku dhiiradeen inay sameeyaan koronto 4 saac korontaas marka waxay ku bilaabatay marka hore qiimo kala duwan in koronto la dhaliyo shidaal laga dhaliyo mujtamaca la siiyo waxay ahayd hawl aad u adag maadaama wax badan oo infrastructure oo u baahnay koronto ay bursanaayeen muddadaas marka ugu horeysay korontada ay bilaabatay soo aragnay iyadoo la gadaayo 1.3 anagoo gadayna soo aragnay waxaan soo aragnay iyadoo la gadaayo $1 la gadaayo iyadoo 79 sent la gadaayo iyadoo 60 sent marba meel soo martay marka waxa alxamdulillah waxa soo maray in maantay magaalada ay ka jirto koronto 24 saac oo anytime la heli karo qiimaheeduna uu macquul yahay si marka loo fiirsho dalalka dariskana la ama wadamada kale marka loo fiirsho inkastoo lagu kala duwan yahay waxyaabo koronto laga dhaliyo oo la dhihi karo waxaa naga raqiisan kaliya wadamada amsaal soo saara ama ka dhaliya korontada waxyaabaha meelaha waxyaabaha ay ka mid yihiin daamiska iyo waxyaalaha lamidka ah marka korontada wax soo martay hararkaas kala duwan soo martay maantana maasha Allah marxalad fiican ay joogtaa waxaan dhihi karnaa maanta meel fiican oo la dhihi karo koronto ku filan dalka ayuu haystaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markood waxaan u mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo halkan uu kulmsiiyay anaga caafimaad qabno markii labaad waxaan rajeynayaa in anaga caafimaad qabnane aan meeshan ka tagi doono insha Allah markii labaad waxaan u mahadcelinayaa Goobjoog Media oo barnaamijkan soo aasaastay maadaama media badanaa bulshada ay ka aragtay ayada barnaamijkan soo qaban qaabisay xoogna startay markii labaad waxaan u mahadcelinayaa bulshooyinta oo Goobjoog Media soo raacay soo tix raacay oo halkan imaadeen ayagana maanta naga qayb gali doono doodooda iyo waxay su'aalaha guuxay in ayagana insha Allah markaa ka xalin doono haddii aan u gado mawduuca ay tahay
wadankii korontooyinkii soo maray iyo horumarkii oo soo maray wallaahi koronto wadankii ebel waa ogeed markii burburka koronto ma weheysan jirin badankood waxaan ka isticmaali jirnay faanuus iyo markii dambe in laafo la shito waxba un si la shinaay markii dambe waxay noqotay korontada in 10 saac maqrib la soo deeyay habeenkii 4 saac 5 saac la damiyo hada heerarkaas badan soo marnay shirkadaha isku aasaaseen oo maanta wadankii horumarkiisa ka taliyay korontadan waxa wadanka horumarkiisa bilaaw qofka ka taliyay waay sababtoo ah warshadaha hadda wadanka soo galeen koronto la'aantooda ma soo gali lahayn isbitaalada badan hadda wadanka shaqeynaya ayagana koronto la'aantooda ma soo gali lahayn korontooyinkii markii maanta alxamdulillah wadankii wax badan ay ka taleen horumar fiican ay ka sameeyeen qiimo oo maanta macquul ah eber waxay jirta korontooyinkii in heshiis oo qofkii laba nal isticmaalayo lacag heshiis laga qaado abu hore ku isticmaal heshiis in loo darjiri markii dambe waxay noqotay in kilowaadkii la isticmaalo oo reed lagu dhufto hadda meesha ugu dambeysay reedkii oo kilowaadkii meesha ugu yaro mara insha Allah waan rajaynaynaa meeshaas meel ka sii sareyso inaan sii tagno wadanka hadduu sii bedelo horumarku waa sii socdaa waxaan sii rajaynaynaa meeshaas meel ka qiimo beer oo sinti iska dhaafay dhuruq inay korontada gaarto insha Allah markuu ku rajaynaynaa wadankana waxaan waxa ugu mahadcelinaynaa insha Allah markii meeshaas ugu baxaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh احنا على الشكور مش باوا سدو بسم الله الحمد لله magacayga axmed cabshukuur waaye waxaan u mahad celinaa koobaad bulshooyinka Soomaaliyeed oo galabta rabtay inay wax nala ogaato annana aan wixii jira u sheegnay waxaan weydiinayaa raadiyo goobjoog oo runtii isku taxallujisay guuxa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir iyo shirkaduhu in la sulansiyo bal wada hadlo horta waxa jira la isu sheego waa inoo kala wararsanayna aad u mahadsantihiin tan kale annaga waxaan rabnaa waxaan taariikhda dib ugu noqono inta odayaal sheegay uu doorto ku kooban tahay korontadu Soomaaliya waxay burburtay 91 dowladda Soomaaliya oo dhaxay koronto xoog badan awood badan bay ahayd xilligaas korontada Muqdisho gaab badan baa ka jiray iyadoo nusqaan badan ka jirta dowladda dhacday oo Soomaaliya dowladda Soomaaliya xoog weynayd xaafadaha habeen baqayr baa la damin jiray dadkii jungle deganaa iyo daway garanayaan dhul badan oo la deganaa baa jirtay dadku korontada xilli dambe tagi jirtay suuqa xoolaha iyo horwaa iyo dadkaas hadaa warsitaan waalidkeena weydiin sheegan korontada xaaladdiisa aan jirtay anaha markii ay burburtay dowladdii wadankan kala carab baa ka dhacay jab badan baa dhacay 4 sano horta wax koronto leeyahay ma jiro 94 meelahaas dadku wax bilbilaabeen waxba kor baa loo soo qaadnay rajo badan baa abuurantay in la noolaan karo baa abuurantay in ummaddu ay dib wax u yagleesho noloshii burburtay laga soo kabto dhibtii la gaaray baa abuurantay ilaa 2000 waxba meel la soo gaarsiiyay ahdigii 2000 ayaa waxa dhacday in shirkada wadanka yimaadeen dadku dib u soo laabteen dib wadanka loo maalgeliyay ilaa 2006 bay taasina socotay iyadoo runtii wadanka lagu soo laabtay la maalgeliyay dhaqaale la gashaday lagu soo dhiiraday korontada in la maalgashado ayaa waxa dhacday waati wadanka dowladda Itoobiya soo gashay eber baa misana wax laga bilaabay wixii dhan waa all infrastructures ay shirkaduhu lahayn waa burburay si dalka Soomaaliyeed u burburay baa ummadda kale la mid ah dhibta la qabnay kabacdina waati xaaladihii dagaal isbedelay wadankii 2000 iyo 2011 wixii ka dambeeyay waati wadanka lagu soo laabtay kabacdina markaas ayaa face cusub la bilaabay waa facekii saddexaad baa la bilaabay faceka saddexaad horumar baa lala jaan qaaday dib baa loogu dhiiriday lacag baa la geliyay dad baa maalkooda gashaday meeshan waa laga cararay kaaraha oo ka dhacaya baanu bakaaraha korontada ka shiday xabadoo dhacaysa baanu shidayn waxaanu lahayn intaas oo dadka Soomaaliyeed baanu dareenka iyo wax loo dhibta la qaybsanayno ayaan mugdi la gelinayaan meheradaha Soomaaliyeed aan la jabsan meel kasta oo business ah dad bay haysatay iyadoo waxaas dhacay dad baa ku dhimanayay ku dhaawacmay kan calay taxal hadda xaaladdu wadanku ku jiro waxa la horumar far badan baa la gaaray idinka indhihiina idin marxaantiyo wadanka korontada ka jirta waqtihin koronto xoog badan 24 saaca adeeg baa haysataan nimca badan baa jirta alxamdulillah rabbil caalamiin waxaas looga gudbayana waxa weeye waa horumar ballaaran insha Allah ta'ala mustaqbalka ilaa 2030 kana shirkadu qorshayaal waaweyn bay leeyihiin waana ogaan doontaan insha Allah mustaqbalka wixii jira iyo sida wax loo wado ee waxaanu higsanaynaa insha Allah assalaamu calaykum waa mahadsan tahay Jubba yaa iskale mas'uuliyadda gubashada guryaha oo kale korontada maalmihi la soo dhaafay aad intaas looga cabanayay ma shirkadihiina korontada iskale mise dadka guryaha ka gubtay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والاخره والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الهي سبحانه وتعالى ما هذا
goobjoog iyo daawadayaasha goobjoog iyo goobjoogayaasha hadda programka nagala qayb qaadanaya shirkadaha aad baan idinku mahad celinayaa. Waxaan rabaa intaan mas-uuliyadda u gudbin horta aynu isla fahamno maxaa keena gubashada. Gubashada waxay ka timaadaa maogtahay mas-uuliyadda waxaa ka horeysa gubashada marka hore waxay ka imaanaysaa. Waxaan rabaa inaan wax yar si dhiibaan isla fahno waxaad ogtihiin haddii aan Englishka ma jecli laakiin haddaan erayo English isticmaalo iga raalli ahaado waxa laga yaabaa inaan af Soomaali markii soo qaban waayo. micnaheedu ma af Soomaaliga ma aqaano waan aqaanaa. Waxaa jirta marka qalabka dalka la keenayo mas-uuliyaduhu qaarna qof bay ku kooban yihiin qaarna waa qaar la wadaago. In koronto dalka la geliyo oo guryaha la geliyo waa mas-uuliyad ka dhaxaysa ganacsatada dadka guryaha iskale shirkadaha iyo dawladda. intaas oo qof bay ka dhaxaysaa halkii guri koronto la gelinayo. qalabka marka dabadda laga keenayo nin ganacsatada baa soo gadaa. waxay ahayd markuu dekadda soo istaago in qalabka laga fiiriyo oo la yidhahdo qalabkan horta dalka ma la soo gelin karaa weli halkaa maynan gaarin. ganacsataduna waxay ka fakeraan sidee baad lacag uga samaynaysaa sababta waxaa laga yaabaaba ayagoon dadkooda ku xumaynaynin inaysan waxaan aqoon u lahayn. kow alaabta baa la keenay. laba guriga marka la dhisayo waxaan ka hadlaya wada fact kulligiina waa waxaad wada ogtihiin hadhow mas-uuliyadda waan u tegi doonaa. guriga marka la dhisayo ninbaa contractora contract ku qaatay guriga. nin kastoo contractora wuxuu wataa wiil electriciana oo ay ma laga yaaba inay wax isu yihiin line to line fiilo to fiilo sida lasuu xiro wiilkan yaqaanaa. waxaa laga yaaba inuusan weligii korontada iskuulu gelin. intiina halkaa fadhida qof kastoo gurigaa degan tahay gadaal bal hadda maskaxa intaad ka shaqaysiisa gurigaa degan tahay single line diagram ama balaankii korontada lagu geliya ma leeyahay. I don't think la helayo ma jirto inta badan ma badnaa. guriga korontada markii la gelin sax looma gelinin. qalabkii aan sax ahayn qofkii kaliya aan sax ahayn. adduunka marka guriga koronto la geliyo certificate baa la siiyaa. waxaa la yidhahdaa gurigan koronto waa lagu sii dayn karaa. ayadana cid certificate ma siinin. hadda anugu shirkadaha u hadli maayo waxaan u hadlayaa dadka Soomaaliyeed ee waxaan daawanaya u hadlayaa. Muqdishona ka hadli maayo Soomaaliya oo dhan baan la hadlayaa. guriga marka koronto la gelinayo waxay ahayd inta la tago in check lagu sameeyo guriga intuu dhan yahay min bidaaya ilaa nihaaya. xagee see loogu samayn karaa check inuu guriga warqadi taalo meesha oo qofka koronto ku sideen uu yiraahdo gurigan filada ku jirta waa nooca intaas ka taas kalarkaas ay leedahay halkaas ay tagtaa plan. qoliyaha korontada bixiyaana iyaga is eriyada. shirkadda kale yuusan gurigan kaaga hormarin iyo israadaa. okay gurigii marka haddaba mas-uuliyaddii dawladda iyo tii qofkii soo qaaday fiilada keenay iyo kii guriga geliyey iyo kii korontada ku sii daayay intooduba meel bay wax ka misgareeyeen. mas-uuliyadda haddaba yaa iskale. anu mas-uuliyadda judge ma ahi oo hadda wax kala xukumin maayo laakiin curfiga korontada inta aan ka aqaano iyo qaabka ay u shaqeyso inta aan ka aqaano mas-uuliyadda awalan wa qabla kulli shay waxa iskale ninkii guriga dhistay ee hantidiisa geliya waxa laga yaabaa hadda nimaan darisnahay magaciisa micna aan sheegay samayn mayso. guri buu dhistay ii dhow $340,000 baa la geliyay. waxaan idiin sheegayna waa run $340,000 baa la geliyay. markii la damcay korontadii lagu dhamaystiray la damcay in la shido laambadii gudaha ku jirtay marka la taabto waxaa qaylinaya gambalaalkii guriga lagaga soo geli lahaa qaylinaya. sababtu waa maxay? fiilooyin baa la isku xidhay. marka warka waan dheereeyey. mas-uuliyadda waxaa iskale qofka guriga dhisanaya inuu gurigiisa iska fiiriyo qalabka uu gelinayaa qalab saxa ma yahay. qofka korontada u geliya qof korontada yaqaana ma yahay. shirkadda korontada markay timaado waxay arkaysaa saacadba halkaa ku xiran. gurigu waa shub fiilada la geliya waa noocee xataa ninka guriga dhista ma yaqaano. marka problemkani waa problem collective ah. dad fara badan baa xanuunkan wada keenay oo dawlad leh oo ganacsato leh oo ninkii guriga dhisanaya leh. marka mas-uuliyaddina waa collective laakiin specifically waxay gaar uga dhacasaa dadka guryaha dhisanaya. hal waxna waa idinku darayaa. hal arrin baan idinku daraya warka waan dheeray raalli ahaada. waxaan ku darayaa guriga haddii koronto saxa la geliyo oo qaabkii saxda loo geliyo oo guriga earthin loo sameeyo. earthinku waa teera faasha tiraan dhulka ciidda loogu aaso oo qalabkuna uu wada quality yahay. gurigii gubtay lacag sana bixinay ma jirto weligii ma gubanay gurigaas. gurigaas sababta uu gubtay maxay tahay? wuxuu u gubtay qalabka ku jirana sax ma aha. labo ogaadana oo korontadu meel kasta kama guro dabku meel kasta kama kaco. wuxuu ka kacaa meelaha fiilada la saga keenay bareesada
laambadaha fiilo is haysato oo socoto keligeed inta 99% of the time ma gubato marka warkii waan dheereeyay mas'uuliyadda dadka guryaha dhisanaya guryahooda waxa ay ku dhisanayaan iska ilaaliyaan xataa haddaad kiraysto tahay guriga aad kiraysanaysaa carruurtaada iyo naftaada baad geenaysaa iska hubi gurigana guri sax ah si waxa korontada ugu jirta ma tahay waxa laga yaabaa dadka qaar inay degan yihiin gurihiisa aad barxiluu ka tagay la dhisay oo laga yaabay in 1980 1970 korontada la geliyay korontada waxa lagu tiray after 20 years in la bedelo gurigii baa iska dhex joogtay hadda maalin dhowto dad baa guriga jooga ku dumay marka waxa la rabaa waxana waa wax shirkadahan yaan la soo fiirinayna yaan laga dhigin case-ka shabeel bariyaha igilaaye aynu wax collective wax naga wada dhaxeeya lagu baraarugsanaado aad wad maasan shirkadu waxay marmar soo daayaan koronto awood leh taasoo ma la dhihi karo sababta waxaanay ku dhacayaan weyn tana arrinkaas soo noqnoqday si technical ah yani laga korontada marka la soo daayo magaalada muqdisho adduunka standard inaga standard ka haysan magaalada muqdisho koronto lagu geliyaa waa bridge system waa PS system bridge system way micnaheedu muxuu yahay transformerka marka la joogo maximum 415 volts 420 volts baa joogta korontada marka la soo daayo kaba soo qaad waxaan tusaale soo qaaday in laga soo daayo jabad geelle korontada marka la soo daayo kaba soo qaad 33,000 voltage ku soo baxda transformerka waxa uu imaanaysaa iyadoo 33,000 voltage 33,000 voltage mid kale ayaa wuxuu bedelaa 12,000 voltage 12,000 voltage marka laga qaado waa la qaadaya transformerka timaadaa transformerku laba dhinac uu leeyahay dhinac waa 12,000 voltage ka yahay 12,000 voltage 11 kV ama 12,000 voltage ka yahay dhinaca kale waa 420 haddii si kasta kulligeen dad wax bartay baatiin physics at least dugsi saraad ku soo aragteen maybe caafimaad xitaa haddaad dhigateen physics qaybtisaad ku aragteen si kasta oo transformerkaas uu qayliyo 420 voltage ma dhaafi karo waay qaabka uu u duuban yahay ayaa waxay tahay qaabkaas 420 inuu soo dhaafi karin koronto dheeriga marka xagee ka timaada analogy saxan siinaya marka waxaan tusaale idin siinaya adoo musqusha ku jira oo qubaysanaya oo tuubada ku furan tahay sometimes way qof kasta ku dhacdaa soo ma aragtid tuubada qof meel kale ka furo maxaa kugu dhaca biyo way yaraadaan laakiin qofkii biyo hadduu meesha ka dhaca xira maxaa dhaca biyo way soo bataan waxay u khuduucaysaa qalabka aad isticmaalayso tolerance waxa weeyaan muxuu qaadi karaa qalabka marka la soo gadanayo inagu inta badan waxaan ka soo gadanaa China guriyina dib ugu noqdo waxaan ka hadlayaa waa fact shirkada u hadli maayo ummadda Soomaaliyeed baan la hadlayaa qalabka waxa laambadan soo qaadanaya waxa ku qoran laambadan waxay ku shaqeyn kartaa minimum 175 voltage maximum qaar baa ku qoran 220 qaar baa ku qoran 230 qaar baa ku qoran 240 qaar baa ku qoran 250 marka waa standardka haddii aad soo galatay qalab tayo leh 250 voltage baa ku qoran ka soo qaad hadaba waaye adigu waxaad haysatay aad soo galatay suuqa markaad tagtay mid ay ku qoran tahay 230 voltage ogow markii transformerku wuxuu soo daayay 415 voltage 415 voltage technical baan isticmaalayaa inta aynu isla fahamno waa line to line haddii laba line la isku cabiro laakiin line to neutral haddii la isku cabiro waa 240 voltage 240 voltage laambada haysatana meeqay ahayd 230 of course way gubanaysaa standardka marka inagu aynu haysanno waa in alaabta dadku ay haystaan ay isqaadi karaan okay hadda anoo 220 ka haysta still ma badbaadi karaa yes seem maxaad ku badbaadi kartaa waxaad ku badbaadi kartaa inaad xirato shay la yiraahdo voltage regulator voltage-ka shay markuu hoos u dhacana korku ugu soo qaadaya markuu kor aadana hoos kaaga celinaya sidii aan marka hore u sheegayna dhulkaagu inuu terrace system ama earthing system hadduu leeyahay gubashadaasi ma imaanayso aan hadalka conclusionka waxaan ku soo celinayaa korontada guri baa gubtay ama laambad baa gubatay aqliga ilaahay wuxuu inoo siiyey inaynu wax ku fiirino transformerka aad korontada ka qaadato waxa laga yaabaa inay kugula xidhan yihiin 1,000 qoys baa kugula xidhan xaafadaada kaliya gubatay ilaahay ma qadare ma waxaan oran karnaa korontadii wax gubtay hadday korontadu wax gubtay source-ka adigu aad wax ka heshay 1,000 qoys baad ka wada qaadanaysaa adiga kaliya maxaa ku guday waxaa ku gubay waa cilad gurigaaga dhexdiisa marka koronto badan shirkaduhu ma soo daayaan hadday soo daayaanna transformerkoodan xamilaynin wallahu a'lam bismillah waxaan rabaa inaan ku daro horta marka koowaad su'aashii aan weydiisay ahayd mas'uuliyadda iyo askar inta mas'uuliyadda la gaarin horta waxaa muhiim in la ogaado dib
hadduu kaco waxyaabaha dabka dhaliya korontada wadbarsid maxay ka tahay waxaan rabnaa kow inaan isku sheegno horta guri walba oo gubta xaqiiqdiisa waa ognahay waa tagnaa waa ka warqabnaa dadka ugu horeeya taga waxaa ka mid ah shirkadaha korontada waxyaabaha dab ka kaco maantay magaalada gubashada ka dhacda korontadu waxa ay sababtaa ama dab wax ka yimid ama ka dhashay ama fiilo dhalaashay ama wax lamida ka dhashay waa wax aad u yar waxaa jira oo aan ognahay guri walba oo gubta inta badan 90% waa guri ilmo looga tagay waxyaabaha ugu yaab badan waxaa guri walba oo gubta markaad tagto waa guri ilmo looga tagay ama kor looga xiray waxyaabaha cajiibka ah aan aragnay kamid tahay waxaa kaloo jira xilliyada qaar marka la gaaro xilli roobaadka oo kaleeto inta burjiko la qaado guri la galeeyo kanicada iga qaaci la yiraahdo burjiko guri dhex dhigo markay gubtanayna korontada gubtanayna waa aragnay waxaan kaloo aragnay oo ayadana jirta waxyaabaha ugu asna ugu badan ah waagi hore dabka waa la kala doonan jiray marka la yiraahdo dabka loo baahdo cid daris iga soo qaada la dhihi jiray maanta dabka lama kala doonto oo dadku waxay isticmaalaan gas iyo technology kala isticmaalaan marka si dabka loo shito waxaa la isticmaalaa jinsiga sigaarka lagu shidan jiray ayaa guryaha la geystaa dadka qaarkiis inta badan si ay dabka ugu shitaan jinsiga marka guriga la dhigo ilmana guriga looga tago waxaa dhacaysa cunugu inuu joodar ku qabto deeha ku qabto meel ku qabto waxyaabaha ugu badan oo keenay kamid tahay marka dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa marka hore inaan u sheego ay raado guryaha ay la dhigaya jinsigarada ee looga tagaayo ee waliba iyadoo ilmo joogan laga tagaayo meesha mas'uuliyad darro badan ka dhacda hada u soo laabtay dhinaca korontada korontadu inta iska gubato iskama kacdo waxay korontadu kamid tahay waxyaabaha dabka ah ee guriga yaala guriga burjika taala gaas yaala koronta ku jirta midiya taala intaas oo shay waxa disha guriga taala marka korontada aan fiirino hadii aad adiga fiiladii aad saarto culays ka badan waxa imaanaysa in fiiladii inta dhalaasho ay gubato mas'uuliyadda waxa iska leh guriga iska leh marka la yiraahdo shayga tayaxan soo qaado oo shay aan xamili karin dabki la yiraahdo hal la galiyo wax lagu isticmaalo iyadana waxa ka dhalanaysa mas'uuliyadda ka dhalanaysa halkaas waxaan kaloo inaan ku daro shirkadka iyo macaamiishu xuduudda kala leeyihiin shirkadii layna keentay baa la soo istaajisay customer wuxuu keensaday fiilo iyo saacad uu keensaday waa loo xiray shirkadu halkaas ku agtahay shirkadu guriga ma dhex joogto dabki ma isticmaasho ma kontaroosho kama warqabi karto guriga wax ka dhex jira qofka isticmaalaya isaga laga rabaa in maadaama koronto shay khatar tahay inuu badbaadada ka taliyo oo sidii loogu talagalo isticmaalo haddii marka ayada khalad laga galo wax walba oo khalad laga galo dhibaato keena tusaale haddii daawo inta lagu soo qoro adoo daawo lagu soo qoray inaad ku caafimaado aad si qaldan u isticmaasho waxa dhacayna ku dhimato marka korontada sax loo isticmaalo problemkeenu wees laakiin hadii qalab qaldan loo isticmaalo si qaldan loo isticmaalo fiilada fiiqan laga tago dabcan in wax dilayso shako kuma jiro ama ay wax gubi karto marka waxaan leenahay horta waxyaabaha guryaha guba ma ahan koronto kaliya inta badan koronto kama kacaan waxa jira factors badan oo keenay bal horta aan dib ugu laabano laftiga taxadirka aan badin insha Allah la qodobkan ku darsanaa badan aad korontada wax gubo waa la ogyahay hadda ka hor anoo baranji jooga waxay u dhacday guriga waxa gubtay koronto gas qofku wari aniga iyo waxaan tagnay farsamada qaanki oo asina jarjartiis wato dabkii ka reebay qofkii aanu ag taagna maamadii kala soo baxdo dariska tahay waxa dhahday koronto ay gubtaa dhine gas ay gubaa dhine koronto ay gubta dheh sababta meelaha ku riixata markaas heesataa aligana waa ag taagnaa shiba ka dhahay markii hadhow la gaaray waa ila soo xogti wax dhan waa mooho marka badanaa guryaha waxa gubo waa gaaska jansiidarka mid kale xitaa koronto guriga waa gubi kartaa dad waxa jira ayagana korontada si qaldan u isticmaalayaan ayagoo dib xadayaan oo kale oo xatooyin kala sameynayaan inay qofkii xadaa inuu soo korontada aqaanin oo dib loadkii waxyaabo uu gaarsiiyo oo san laba fila aslaan isku taabana dhibaa guriga ka imaan karo mid kale waxa jirto barees markaan adiga kale isticmaalaysid hadii maanta load oo barees yar adoo kale isticmaalayo hadaa load finijeero kale waxyaabo culays oo kale hadaa saartid wuu dhalaala dahmag wixii uu qabsanaa meesha soo dabka bilaabanayo sababta wax ka weyn saartay tusaale waxa ku soo qaatay adoo giriga oo baawur premium kala daa saartay baawur oo aragidii soo kale ma qaadi karo ayna saas waa korontadii breaskan waxa loogu tala galay waa nalalkaas iyo amba taleefkaas ugu jaajareenay laakiin load ka weyn daa saartid meesha ku dhalaala meesha wax ku gaara mid kale waxa jirto dadkii oo xaafadda badan isticmaalaan dadkii korontada waxay ka weesanayaan in shirkadda soo wacaan ee dhahan korontaan gubtay amba ciladaan naga jirtay kaalay naga soo gaaro waxay wacanayaan cunug xaafadda degan oo san korontada aqaanin amba wax sameeysan karin waxaana korontada ma taqaan ha $2 ama $1 ku siinayna loo sameey asigii wax qaldaa markuu wax qaldo oo san wax dib gaaraan lagu soo waca amba soo dib gaaraan xataa lagu soo waca lagu dhaha kaal ciladaas naga jirta daa fiirsana shala meesha ugu jooged maanta ma ahanbo marka badanaa waxa guryaha gubo waa sidaas shirkadii waxay leedahay nidaam ay leedahay shirkadaha
sababta ninkan Cabdinuur soo sheegay shirkadaha waxay yihiin wixii oo saacadaas ka dheeri oo macmiil kale mas'uuliyadaas macmiilka asaas kale wixii saacadaas ka dheerin oo saacadii wixii ka banaanka ana shirkadaha mas'uuliyadeeda leh mid kale waxa ku dara awoodda korontada la soo daayay marmar oo kale awood koronto adii la soo daayay engineer soo sheegay sida transformer ku soo dhacay kadib leemakay ku soo dhacay xaafadii waxa naqanaya shirkado kale markii hadda oo dhahay awoodda lagu soo daayay waa inay bulshada leenkaas ka qaato amboosan ma tahay xaafadaas oo dhan ka qaato waa inay damage ka gaarsiiyaan laakiin hal guriga damage gaara amsiya gaaray waxa uu dhahay shirkada lood awood badan ah dabkii soo deysay marka ma suurtagal garto halkaas oo u baahan insha Allah dib waa maasan tahay dadweynahan markaan u gudbin doona qeybaha ninkan ugu soo horeeya gacanta taaganaya waxaan rajeynayaa laba su'aalood baan qabaa labada su'aalood in si go'aan aad qaadan kartaan aad iga jawaabtaan oo taasoo ka dhalanaysa in dadku aad ay ku qancaan mid labaadna way jirtaa inaad noqotaan wax soo xataa gardiido waa la diid inaad gartiinana qaadan kartaan waa kow su'aasha koowaad waxa weeyaan shirkadda Beko sanadkii 2020 waxay xayeysiisay in 7% ay isticmaalayso solar system taasoo ku baxaysa lacag 40 milyan ah bixinaysana World Bankiga maadaama Soomaaliya 85% aysan isticmaalin koronto isla xilligaas Beko waxay ku faantay inay 7% isticmaalayso mataqaanaa baalkaas solarkaas lacagteeda ay dhintayna xilligaas uu u dhigmaa $100 oo ah 0.86 ay isticmaalayso muddo ka bacdi waxa qaaliyoobay shidaalkii adduunka dhan ka qaaliyoobay aan kala sinayn waxay ku dib ugu celisay halkiisii hore 2020 bishii Abriil bishii May iyagoo shirkadaha dhan ay kala siman yihiin oo ay wadareed ahaayeen markaas waxay gaadheen inay ku celiyaan $100 hadana $100 dib u faa'iidaan oo ah 0.46 ay kaga yimaadeen 2019 kaga yimaadeen inay dib ugu celiyeen taasi waxay keentay in lagu cudur daartay shidaalka oo qaaliyoobay hadda shidaalku wuxuu marayaa halkii uu taagnaa 2019 maadaama uu halkaa taagan yahay idinkana weli qiimihii aad taagan tihiin ma awoodaan inaad bulshada dib ugu celisaan oo dhahdaan warniyo shidaalku waa jabay waxaan dib ugu laabanay 0.86 inaan idinku dhufano kilowatkii taasi wataa oo su'aasheedu ay tahay dadka ma siinaysaan xorriyad ay saacadda rabaan ku keensan karaan oo sharciyan ah oo maasantiin bismillaah magacaygu waa Cabdi Absuudi Nageeye marka hore waxa u mahad celinaa baahda goobjoog oo kulankan quruxda badan soo agaasintay runtii looga hadlayo ciwaan bulshada dhibaato ku oo xilligan taagan horta marka hore teamka korontada dalkeena bixiyay saddexdan shirkadood oo u mahad celinayna adeeg ay noo hayaan laakiin adeeg ay noo hayeen dhaliil ka soo laabata dhaliisha marka in la isku sheego waay si wax looga qabto runtii ninkan odaga ah la qabaa oo rag isku tashada codkooda inay nagu qanciyaan galabta la soo diray runtii waxa dareemi kartiin ninkaas odaga wuxuu sheegayay in dadka ganacsatada ay wax banaanka ka keenaan qalabka korontada lagu isticmaalo ummadda maxaa uu sheegi laadiin waxaan dibadda laga keenayo inay yihiin wax khatar ku ah noloshooda tusaale kale gurigan koronto haddii ay ka kacdo dadaa ku dhimana marka adinka dantiina fiirsatiin lacagtaas jaarjiga fiirsatiin maanta ka hor ma jirtaa meela bulshada ugu sheegteen waxaan dibadda laga keen in dhibaato ku yihiin tusaale haddii aan soo qaatay ninkan saacadda ka hadlaya saacadda kaliya ma shirkadiina korontada jaajar aadan rabinina barays aadan rabinina lama isticmaali karo saacadana rabinina lama isticmaali karo kiila aadan rabinina lama isticmaali karo markaas waxa leedihiin mas'uuliyadda ma qaadi karno korontada qatarta ka dhalato mas'uuliyadda sababta aadan u qaadi karnina maxay tahay ani haddii aan guri koronto gashanayo saacada adinka raalli ka ma gashan karo baraysada raalli ka ma gashan karo marka see noo leedihiin galabta ama sidee nooga dhaadhacsiin kartiin korontada mas'uuliyaddiisa waxa qaadaya ninka guriga iskale midda kale oo ku darsanayo waxay tahay ani guriyaan dhistay tusaale ka soo qaad qof muwaadin Soomaaliyeed guri dhistay wuxuu gashtay fiilooyin loo galiyay sida ay sheegaysiin oo qof uu soo watay fiilooyin waxba loo galiyay saacada gelisan maxaa u dhihi laadihiin war guri intaan ay ku diyaarsan tahay waxba ma gelineen haddii annaga aanan bilaabaynina si aan qatarta u damaanad qaadin marka muhiimadiina weyn waxay tahay in lacagta kaliya fiirsatiin maxaa waxaan bilaaw ilaa dhamaad adinka u qabal laadiin haddii aan runta sheegaysiin waxaan ku soo gabagabeynaa waxay tahay dadka Soomaaliyeed saddexdiina shirkadood qaana idinku leeyihiin qaanta idinku leeyihiin waxay tahay bishii la soo dhaafay hadal haynta waxay haysay guri $24 laga isticmaali jiraa $300 la soo qaadi jiray $200 ay soo saar ummadda Soomaaliyeed qaanta idinku leeyihiin ta af miishaarnimo laga saar waxaan rabnaa waxa ugu gudaysiin inaad sheegtiin inaad aadin 3 bilood soo socoto qaladaan naga dhacay korontada free ku isticmaalaysiin 2 bilood soo socoto korontada free ku isticmaalaysiin ummadda Soomaaliyeed qaana idinku leeyihiin
qaantaas qaladkaas oo ku dhaca qalada dhac wax suurtagal ma guri $15 laga isticmaali jiray $200 suurtagal ma qaantaas ummadda idinku leeyihiin maxaad uga jawaabaysaan sees bulshada Soomaaliyeed uga qancinaysan aad iyo aad waa maasan tahay labadan su'aal aan ka jawaabayna labadan su'aal laga jawaaba Bismillahir Rahmanir Rahim garaad Yaasiin su'aasha horta ku hormaraya horta qofku inuu booliiskii iyo xaakimkii iyo jeelhayihii waxa inuu mar isku noqdo waa arrin cajiib ah waxaan rabaa horta 2020 inta badan wixii developmentiya meelaha public-ga ninka kaga hadla ee declare gareeya waa aniga 2020 beeko meesha ay ku tiri 70% solar baanu ka sameynaa waxaan u maleynayaa garaad Yaasiin wuxuu u jeedaa shirkii lagu qabtay Dikaale ee 2022 2020 ma ahayn 2022 buu ahaa point of correction waxaanu nidhi sanadka 2026 hadalka moogta lama leexiyo 2026 korontada waanu jabinaynaa baanu nidhi welina waanu aaminsanahay inaanu korontada jabinayno korontada 70% cid ka samaysa solar Soomaaliya ma joogto laakiin wayda qultum fa'dilu walaw kana dha qurba cadaaladda lagama tago magaalada Muqdisho yaan tusaale hadda soo qaadanaya korontada $20 bay ahaan jirtay 79 bay timi 65 bay timi 55 bay timi 48 bay timi 36 bay timi insha Allah waa ku soo noqon doontaa hadaysan ka hoos marinay insha Allah waa ku soo noqon doontaa hadaysan ka hoos marinay 60% calculatorina qaata mathematicians baatiyeen 60% dollar kasta oo ay shirkaduhu qaadan jireen 60 senti dadweynaha loo celiyay waxaan kaloo idinku darayaa waqti cadaaladda lagama tago waxa laga yaabaa dad shareholders hadda halkan inay fadhiyaan dadka shareholderska lacag ma helaan why development ba socota faa'iidada 8% sanadka hadda u dambeeyay 2021 iyo 2022 8% baa la keenay shirkadaha qaarna break even point shil lacag ma faa'iidin ba horta ninka aaminsan ninka tuunsan Soomaaliya tabar yarow inta aadan dib weyn tirsan tala ku siinay oroy timir laf baa ku jirta war meesha lacag laga sameeyo horta nimanka aaminsan lacag laga sameeyo meesha lacag laga sameeyo hadda aaminsan lacag laga sameeyo shares ku furayina ar ku soo darsada ina shil ku darsataan ma ogolidin meesha volunteer baa lagu shaqeeyaa saacadaha aleedihiin wada ogol ha laga dhigo kaadi Cabdinuur biya iga damay boogta beekad specifically iyadoo meesha la wada fadhida anaga gaarna waa target gareysa annaguna huuha ma hayne dadka muslimiinta inaanu dulmina ma rabno hadda waxaad u dhigaysaan warka si niman dadka dhaca waa runta ana ruma sheegaya waxaan gacanta ku hayaa nin kasta aan ugu waroon waxa soo haray saacadaha aad tiri saacada wada ogola ma la kansado horta waxa la rabaa dadka reer Muqdisho indhihiina fura korontadu qaabkee bay adduunyada u shaqeysaa korontada adduunka say u shaqeysaa hadda South Sudan Jubaland I can listen to you. adduunka meel aan Muqdisho iyo Soomaaliya ka ahayn oo ay ka jirto qofka inta la yiraahdo orod oo suuqa aad oo saacada rabto soo galo haddaad ii sheegtaan bariis waxa sameeyana Kenya iyo Dirisa Ethiopia iyo Dirisa waxa inoo Dirisa Uganda Djibouti iyo Dirisa utility-gu iyaga mas'uulka saacada la isticmaalayo waliba anagu hadda ogaado suuqa yaalaan anagu dadka ma qortaan sababta shirkado badan baan nahay laakiin utility-gu shay adduunka sidiisa shay kasta curfi buu leeyahay curfigiisa in la raacana muhiim ah meel kale ka tusaya haddii kale saacad soo gato oo mid Chinese tahay oo laga yaabo mid kale saacada calibration adduunka lagu sameeyaa aynu ala cilmi ku wada qofka hadlaya waxa uu ku hadlaya aqoon ku hadlaya saacada calibration waxa lagu sameeyaa calibration waa maxay saacada waxa laga yaabaa sometimes inay dadka dhacayso dadweynaha mararka qaar kood waxa macquul ah inay dhacayso macaamiisha marna shirkadda oo anagu saacadaha miyaan iska xidhnaa maya qofkii baa loo xiray saacada loo test garaynin saacada waa idin test garaynaa
waxaan idin tusinaa saacadan inay exactly 1 kilowatt hour 10 laamadood baa lagu xiraa laamadahaas qofka arka indhihiis ku fiirsadaa waa loo testgareeyaa waa loo xiraa saacadaha annagu dembi kuma lihin inaanu idhaahno suuqa tago saacad ka soo gata marka warka waxaan kusoo koobayaa nimanka korontada Muqdisho Soomaaliya waa korontada ugu jaban 0.48 waa ku saraysaa marka boorda dalka soo waraysta ila Soomaali baa nahay maxay Muqdisho Soomaaliya ka duwanta diesel generator si dadka badan jooga isticmaalaan diesel bay isticmaalaan dadku diesel bay isticmaalaan 80 cents 90 cents $1 $1.20 waa dadka kale laga siiyaa afartanise wait a second brother please 0.48 baa lagu siiyay he's supposed to say thank you ina thank you tiraadaan bay ahayd marka su'aasha intaas ay kaga gudbayaan su'aasha kale miyaa ku daraaysatay marka hore dhameynaa aan la soo raacsan Abdulwahab brother Abdulwahab shidaalka qiimo soo dhacay sorry hadalkii moogteen af gacanta iga galay wada qalisin waxa ku yiri 36 inay gaadhaan waxa ku yiri hoos ka sii hadalata macquul waan fariistan go'aan baad ku timaadeen go'aanka ma nasiin kartaa maya go'aanka demay go'aanka moogteen meesha meel imtixaan iska qaaday yes or no isku qaadanay ma korontada waan jirnaa insha Allah future taas halkaas ka gudbay ma ya raba baa iga damay inta wala iga joogay ku daayay brother Abdulwahab su'aashiisi ahayd qalabka hal moogtahay cadaaladdu waa shay aad muhiim u ah Abdulwahab hadalkiisa waxaan ka soo qabsanay ereygii ahaa niyo interest-kiina kaliya fiirsanaysaa gurigan in uu gubanayo iyo inuusan gubanaynin ma macaamiisha ka fiirisaan waa legitimate question waa su'aal sax ah oo shirkadaha qabata hadda waxaan ku dhahay idin sheegnaa أنا حاضر معي تركض على عشرة سنين أما أنا I have to be fair وحماش جرتا قولي في الله وفيلو ينكسان هل حبا لا يعتني قولينا وقوليها بعونها من الله إذا واحد قلت هذا واحد قبل ما تقعنا بعونها قبلا قوليها بعونها أنت أنا التجنوي أنا قوة بدن أنا كنت قلمين وبعونها markaanu fiirino aanu ornay gurigan ama korontada qaabka ugu jirto wax ka bedela ama koronto ma gelin karna bacweynaha waxa soo haray guriga filada ah uu isku dahaanay filadu waxay martaa safiitada korkeeda nin kastaana guriga banaankiisa wuxuu soo dhigay fiilo laba afle oo saacad loogu xiray filada ku jirta lama ogaan karo annaga laba option marka noo banaan in aan dadka dhan diidana koronto idin siin mayno يعني أنا أوريه قرية كرنتة سيف عن موجود شنو كستار كورة قرية كرنتة سيف عن موجود تا ما يقدر نسمي سبلوك إسكابنا هذا ما يقدر نسمي بقدش أنا هذا أنا رجع أنا ونقول لنا مركا قريها كرنتة ولا قليا شركة ذا بولس والله قربا والله أعلم أدواب هون هاي إنجنير كم يدور شيء قريجي في لاد إسكاجة دين السين قرية ترقف بلادك هذا أودرته مع مش هذا علاب تصلية ما هذا سوقي مركو تجو علاب تأودر تماني علاب كلو كرقي سنو أركا رحقنا على علاب سنو رقيس تاكن صدق علاب تسكمل بحكرية إيحر شو إنجنير كشجعنا علاب تادي هذا حروس الشركات كلها وتاجا شركات كلها حروس ركسية سابع الله ولا رقم ساعد هذا الاستعمال وساعد له بيه كواليتي كانت رول كذا أنا ما قدنو shirkadaha yarba waxay oo dashti gaar ah shaqada loo wado iyo horumarka iyo technology-da iyo wax lagu talaabsanayo oo himilooyin badan way jiraan laakiin saacadaha badan oo suuqa laga soo gataa dukaan baa laga soo gataa waa saacad digital ah qofku wuu keensadaa waa loo cabiraa qofku isaga taagnaada waa loo cabiraa wiilka raaca waa loo soo xiraa horta cid shirkadaha iyagu haddaan horta xaraan cunayno deynta ma joognin waxaan soo waxa ku xirqaysaan anagu ilaahayna waa ka baqaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaad u baqaynaa mar rabno inaan soo gasho arintaas saacada taas waxa qiimihii waa shidaalka waa dhay maxay wax dhimilaadi arintaas rabana marka wax xukuumad ka bixin niman waxa ogtiin shidaalka wuu jabay korontada way jabin wuxuu maray marka shidaalka marka la jeeyo waxa 120 198 buu maray xilligii corona wad garanaysa shidaalkii inuu iska fiican qiimaheena fiican kortan ku haysan buuq aanu jirin adduunyada shidaalkii ruushka dagaal wato soo qaaday Ukraine wixii ka dhacay baa ka dhacay shidaalkii hal maalin soo joogo 9 aanu subaxdii soo kacanay 150 mid baan rabaa inaan sheego shirkadaha korontada hal shirkad oo shidaal soo dejisay ma jirto
hal shirkad oo shirkadaha xitaa shirkadaha shirka soo diyaar ma jirto xaqiiqdii waa la soo baari kartaan waa wadanka waxa kuma kala qarsan arrinta shidaalku waa arrin siyaasadeed oo politics hadda maanta adigu idinku niman dhalinyaro wax bartay baa tihiin subaxdii 2 saac iyo duhurkii iyo galabtii 9 saac hadda suuqa tagto shidaalku lagu jooga 3 barays buu kala joogaa weli shidaalku ma fadhiyo shirkaduhu waxay rajaynayaan ummadda Soomaaliyeed tuu shidaalku jabo meel fiican uu tago una fariisto suuq ahaan uu fariisto nabadgelyada caalamka ka dhacdo shidaalku waxaan rajaynaynaa in aan ummadda Soomaaliyeed meesha ku joogi jiraan ugu celino Garaad Yaasiin wuxuu yiraahdo World Bank ya baa kala cagsisay taas waxa la World Bank lacag ma siinin qiimaha korontada waxa ka hadlay asxaabti kale waxaan ognahay ayadoo qiimuhu shidaalku uu yahay 80 ilaa 100 u dhaxeeyo ayaa korontada waxa la geeyay qiimaheeda 36 la geeyay marka horena $1 iyo 2 senti ka yimid maalin meel soo joogay shirkadaha ayadoo cid qasbaysa jirin ayay maalin meel soo dhimayeen 79 aan ku soo bixinay 65 aan ku soo bixinay 55 aan ku bixinay 48 aan ku bixinay 36 aan geynay cidna qasbaysay oo na dhahaysay qiimaha raqiisiga oo nala dagaalaysay ma jirin waxaan u arkaynay markasta horumarka dalka wuxuu ku jiraa in korontada qiimaheedu uu raqiiso shirkaduhuna u taageen hawsha inay qabtaan marka uu qaaliyoobana wax yar igra laho marka shidaalku qaaliyoobana shidaalku wuxuu kacay 120% uu kacay waxa la kordhiyay 40%. waxa meesha dareemaysaa 60% culeyska shidaalka kordhay waxa dusha saar shirkadii taasoo keentay sida injineerku sheegay in qaarkoodna ay keenaan breaking point qaarkoodna ay keenaan barsid aad u yar taas ayadana waxaan rabaa in arti aad looga qanco marka u soo laabto saacadaha waa laga hadlay saacada digitalka ah waa saacad caadi ah oo standard ah oo adduunka laga isticmaalo dalal naga horeeya isticmaala ayagana laga soo gadaa suuqayna taala shirkad goon u haysaana ma jirto haddaan u soo laabto bisha Abriil iyo su'aashii uu weydiiyay Cabdiwahaab Suudi hay'ad Abriil dadka qaana in kulleeyihiin waxaan dhihi lahaa waxa dhici karta in aan wali lama dhihi karo qaana leen kulleeyahay sababtoo ah saacada qofkan u xiran miisaan jira oo dhaxeeya customerka iyo shirkadda saacadaasi way shaqeyn jirtay Abriil ay shaqeysay Maarch ay soo shaqeysay February ay shaqeysay haddii saacadu ay iska nuucirta iska sameynayso ama shirkadu ay saacada xukumaan saacada guriga ay ku xiran tahay cid tagtaan cid iskana ma jirto laakiin maxaa keenay marka in Abriil ay ka kormarto bilaha kale waxaan rabaa inaan laba faktor ka dhawaajiyo oo keenay Abriil inay bilaha kale ka kormarto awalan Abriil sanadka marka la joogo 2 bilood ayaa waxay tahay 2 bilood oo korontada loogu isticmaalka badan yahay shirkaduhuna ay gubaan shidaalka ugu badan waa bisha Abriil iyo bisha November 2 bilood waa 2 bilood oo da'o roobka guga iyo roobka dayrta ee da'an Abriil waxa daa roobka guga inta badan da'a in Soomaaliya oo Muqdisho November waxa daa roobka dayrta da'a October iyo March way kulliin laakiin kuleylku kaliya ma keenay kuleylka marka dabayl jirto AC-gi ama marwaxadii ay dabayl jirto dabayl ay keeni karto still waxa si noo shaqeynaysa laakiin marka la gaaro Abriil waxa imaanaysa in hawada xiranto calaamihii geedu dhaqaaqi waayaan hawada jiq noqoto taasi waxay keenaysaa marka in AC-gi ama marwaxada la isticmaalay inta kululaato hawo meel ka keento ay weyso xamuul badan is saarto saacadii ay si badan u wareejiso aad loo isticmaalo waxa intaas si dheer sanadkan Abriil waxay ku soo aaday Ramadaan kana sidoo kale to isticmaal guriga waa kaca waxa la soo jeedaa xilli ka badan xilliga la soo jeedi jiray waxa la daartaan xilligii ka badan la habeenka la soo jeedaa wax badan oo iskaashada ayaa keenay Abriil in kor aaday waxaan ka ogaan kartaa warkayga inuu sax yahay in kale to marka la gaaro bisha Juun la gaaro waxa bilaabanaya qaboobe xilligaas waxa way xilliga xagaayada la yiraahdo qabowgu jiro korontada isticmaalka hoos u aadaa dadkana korontada keenaan shirkadkana shidaal yar ka baxo ayadana insha Allah taala arki doontaan marka internet isla fahmay aad muhiim u tahay oo maatantiin shirkadaha korontada ayagana waa mahadsanyihiin maadaama waqtigooda ay hor yimaadeen bulshadii ay u adeegayeen wax badan ay la wadaagayaan dabcan anigu uma istaagina su'aalo badan oo weydiiyo dad fara badan oo aqyaaro halkan fadhido su'aalo badan ay jeediyeen wax badan oo aan qabnay ayaga ayaa jeediyeen waxna waxaan rabaa inaas manti faala ahaan inaan su'aal ay noqdaan dabcan marka hore waxaan ogsoonahay hawsha ay haysaan howlta baaxadeeda aad u weyn tahay waa mas'uuliyad fara badan iyo dadaal fara badan waa sameyseen waa howl laga rabay ama aan ogsoonahay waajibaad dowladda lagula xisaabtamo inay tahay laakiin duruufo badan oo waddanka ka jira
ilaahay idinkoo idin waafajiyey wax badanna waa ka qabateen waa ku ammaanantihiin laakiin dhanka kale waxaan u baahan yahay wixii inay noqdaan wax standard ah dunida la jaan qaada waxay keeni karaanna positivena way la imaan karaan negativena waa keeni karaan marka haddii bulshadii ay ka timaado concern waxyaabo badan ay ka qabaan waxa waaye u qaata dhanka san inaad dhaliishaas wax badan improvement aad samaysaan dabcan meesha aan rabo commentiga inaan ka baxsho ugu horeyso waxa waaye waxaa lagu celishay mas-uuliyadda yaa qaadayo haddii waxyeelo korontada ka dhalata dabcan su-aashaas bulshada waxa waa xal u keeni kara maxkamad ka madax bannaan oo loo dacwoodo oo dhacdadii dabki dhacay la baara inaa idinka leedihiin iyo in cilad waxyaabaha la adeegsanayo ay ka timid laakiin haddaad tirahdaan cilad walba iyo dab walba oo dhacay annagaa bixineen idink laftigiis taas ma qaadi kartaan sida adduunka ay ka shaqaysa waay aaladaha la isticmaalayo ama saacadaha hadda adduunka waxaan ogsoonnahay annaga adduunka ka nimid waxaa la isticmaalaa isla markiiba guri walba wuxuu isticmaalaa system haddii wax yar oo electric shock ay dhacaan taas waa commentigeyga waa inaad ku dartaan aaladda saacadda inaad badashaan oo aad ka dhigtaan aalad waxaa jirta hadda adduunka la isticmaalo ummadda soomaaliyeed hadda way maqla way dhegeysanaysaa aaladdaas waxaa waaye korontada waxyeelada korontada dhan way istaagaysaa waa muhiim inaad soo dartaan midda kale waxaan u baahanahay sidii khatarta loo yareeyo ma samaysaan waxyaabo badan oo ah awareness ah khatarta iyo dhibaatada si loo yareeyo bulshadii ma kala tacaamushaan maadaama idinka aad isticmaalaysaan waxaa loo baahan yahay inaad dadkii ka wacyigelisaan khatarta korontada ay leedahay oo aad ku samaysaan tiim xaafad walba ama degmo walbaba dadka ka wacyigeliya midda kale aan qabo su-aasha kale aan qabo waxay tahay haddii in case dab uu dhaco inta badan way dhacdaay idinka maxaa policy ah oo macnaha idin yaallo oo emergency ah intaasaan ugu bixi lahay aadaan umahadsantahin bismillahi raxmaan raxiim mahad celiya dhammaan goobjoog maamulka iyo sidoo kale saddexda shirkadood oo maanta inay soo hor istaagaan bulshada Soomaaliyeed laga weydiiyo su'aalooyin fara badan runtii ani waagi waxaa jirtay korontada oo 4,000 habeenkii guriga la aruuri jiray oo dhalada waa beriyo dhan waxay ahayd hal waax xaafadeen bisa dhalka taal guriga loo imaajir 4,000 la aruuri jiray dadaal fiican aad sameyseen waa idinku mahad celinaynaa wax wanaagsan waa sameyseen marka wax fiican waa sameyseen waa idinku dhiirigelinaynaa laakiin khasaarihii oo imaado shirkadda ma leeyihiin guddi ninkaa hadda maxay aheedo oo wariyaha xigo wuxuu yiri dib haddii dhaco annagaab imaano ma ninkii dambiilaa gacan ku dhigilaa ma asiga moo dembi isku qiraa wuxuu bilee idinkaa khaldantiine see marka guddi ma leedin oo dhibkii kontaroolo shacabkii iyo u dhexee ma jiraa guddigaas su-aashaas adin weydiiyaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdicasiis cali nuur horta shirkadaha korontada magaalada muqdisho waa mahadsan yihiin goobjoog sidoo kale waa mahadsan tahay horumar fiican iyo dadaal fiican ayay sameeyeen si u ifiyaan magaalada mar walba oo shaqo qof walba oo shaqo qabtana daliil waa inuu helayo asagu waa og yahay hal mid laba su'aalood aan rabaa inaan meeshan idiin soo jeediyo ta koowaad wuxuu ka dhawaajiyay injineerku in jiingaduhu bacweynaha qaar ay diidaan waa arkay aniga dhowr bacweynaha arkay dad waxaan arkay xitaa oo ay fiiladii inta fiiqmatay meeshii jiingada laga soo gelinayay say u dhaqdhaqaaqaysay bacweynaha ay fiiqmatay jiingadii ku dhigtay jiingaduna waa gudbiye ay dad badan ku dishay waa arkay sidaa darteed maxaa u dhihi weyseen bacweyne annagaa gelinayna xataa korontada fiilada annagaa dhigayna maxaa u dhihi weyseen maadaama adinku dadka korontada yaqaana ay isticmaali lahaayeen tubooyin iyo waxay meesha ka xiji lahaayeen fiilada taas waa su-aasha koowaad tan labaad waxaa waaye lacagta dhinaca lacagta magaalada shirkadaha korontada inta badan solar ay xiraan anigu sideeda waxaan ka shaqeeyaa solar system aan ka shaqeeyaa oo marka dhinaca saacadda oo kale solar systemka haddii qof solar system uu gashto
ama uu soo rakibto waxaan arkaa oo shirkadaha korontada ku arkaa saacadeedu waa single direction one direction waaye haddii back feed oo ku sameeyo solarka ku sameeyana oo ku qortiin hadduu iyadiisina oo ku qortiin marka adduunka incentive laga baxshaaho qofkii dab dhaliya waxbaa loogu daraaho laakiin adinka taas ma sameysaan maxaa u sameyn weysaan taas iyadana oo saacadan macnaha dhinac walba aad qofku u qoraysaan maxaad u dhihi weysaan by directional u keeni weysaan qofkii dab dhaliya oo aad uga qayb qaadan weysaan macnaha horumarka iyo tiknoolajiyadda dadku inay ku dhiiradaan taasna waa mid tan saddexaad waxaa waaye adinka laftirkiina saa magaalada noogu qurxisaan mustaqbalka dowladnimada ugu diyaar garowdaan maxaad ugu midoobi weyseen oo system integration oo laymankiina xataa u miday weysaan sabab badanna way keeni lahayd faa'iidada koowaad keeni lahayd waxaa waaye u diyaar garowga in magaalada muqdisho haddii xataa dowlad imaato ama dowladu ay adeegii la imaato in ay si sahlan linekii u dhigan yahay oo u nidaamsan yahay faa'iidada labaad waxaa waaye shortage power sourceku inuu yiraahdo oo haddii beeka tagto muqdisho ay dab heli karto in la helo taasna maxaa iyadana qorshaha ugu darsan weyseen oo magaalada u miday weyseen aad mahadsantiin assalaamu calaykum saddexdan su'aal Abdulfataax wuxuu ka dhawaajiyey aaladan korontadu marka ay cilada dhacdo oo korontadu isdaminayso RCD baa la yiraahdaa residual current device believe me gurigii lagu xiro ee muqdisho ku yaala mar kasta weligii ma daarmayo and I tell you why guryaha lagu xiro ee bahashaan ay ka shaqayso waxaa loogu talagalay waa guri xataa derbigiisa markii la testigareynayay derbiga bahal impedance la saaray derbiga qoyaan intee leeg baa ku jira bahashaasi hadday wax yar oo karantiya oo derbiga raacay hadduu jiro way isdaminaysaa guri uusan derbigiisa karant raacayna xamar kuma yaallo guri uusan derbigiisa karant raacayna kuma yaallo why because lama design garaynin waxaan anuga ka hadlaya waa fact shirkada u hadli maayo sababta qof weyn oo odayaan ahay amaam allahi waxaan waa la weydiinayaa sidaan wax u ogayna wax u sheegan rabaa residual current device magaalada muqdisho lagu mixi karo maalin ba hadda ka hor wacyigelintana waad ku dartay horta beeka friend lama tiidniyahow beeka haddaad friend la tahay habeen iyo maalin waxaanu qaybinaa dadka korontadiyada looga digaya meel kasta ku jirtaa horta inuu beeka soo booqo bal beeka soo booqo mar hal mar beeka beejada soo booqo horta waxaa dhacday hadda ka hor yaan waxaan youtube-ka waxaan beeka waxay gelisay anigoo dadka korontada khatarteeda uga digaya bakaaraha anoo marayaan in maalin qabtay dhab markaasuu inuu meeshan soo gal meel bi igu leexiyey qol bi igu leexiyey ninku wuxuu gadaa bahalkan biyaha lagu kululeeyo marka la qubaysanayo bahalka biyaha lagu kululeeyo gadaa bahalka biyaha lagu kululeeyo Abdulfataax u fiirsaday magaalada haddii idinku laftigiina idinku jirto khatarta iska ilaaliya bahasha uu gadayo waxay leedahay face iyo neuter oo keliya mamnuuc wuxuu yiri inuu bahashaan gadaa gabar ay gadatay gurigii geysatay biyay ku kululeysanaysay gabadhii bahashii electrified gabadhii way dhimatay biyihii baa dilay why sababtoo ah bahashaan waxaa loogu talagalay 3 fiilo face iyo neuter iyo earthen residual current device qof uusan u xidhnayn bahasha lagu qubaysto haddaad ku qubaysato ka joog biyada biyaha lagu kululeeyo haddaad ku qubaysato ka joog you are at risk haddaad dhowr jeer hore ku nabad gashay next time you know what's gonna happen marka bahashaas waa khatar iska ilaaliya wacyigelinta waa samaynaa bahashaasina way jirtaa laakiin magaaladu marka ay regulation marka la helo nimay waxaan isku canaanano aad nagu canaanaysaa waa shaqo dawladeed haddaan regulation la helin sharci kale celinaya dadka walaalkii hadda u dambeeyayna korontadu bahashu ka hadlayay halkaas ay khuduuc doonta haddaan regulation iyo wax dadka kale celiyo oo kale xaday haddaan la helin weligan qoorteen iskaga duubanaynaa horta nimayahow saacaddu waxay ku shaqaysaa 3 shay waxaan rabaa inaan si cilmi ah wada hadalno 3 shay bay ku shaqaysaa shay afraad meel kama soo galo voltage-ka meesha jooga inta uu la eg yahay ambiyarka meesha maraya oo ka imaanaya waxaad isticmaalaysa intuu la eg yahay iyo wax power factor la yiraahdo electrical engineering ay fahmi karaan labadooda xagasha u dhaxaysa saacadan iyada hal waxay aragtaa bas meeqa voltage maray meeqa ambiyar maray labadaas isku dhufatay kilowatt bay u rogtay
bishii bay ku xisaabisay dhakab haddaad dood ka qabto shaki ka qabtana xataa cid kugu dhimaanaa kuu testigaranaya saacaddaada soo qaad adoo arkaaya yaa waxaan kugu xirayaa laambado hal saac aan isla fiirinaynaa hadday 1 kilowatt ku darto wixii lacag kaa baxday xataa shirkadda ku weydiin maayo anaa kuu celinaya shayga markaad gadanaysa waxaad fiirisaa gadaashiisa fiiri saa u soo waxaa ku qoran warqad baa la socota shay kasta oo electriga oo aad gadato warqad baa la socota warqadda la socota fiirsha haddii lagu yidhaahdo up to 250 volts 250 v hadduu ka yar yahay gadan lineka annaga aan meesha keennaa waa 240 voltage haddaan los jirin 240 voltage xaafadaada timaado markaad newtrkii face ka cabirto 240 voltage 240 voltage shay ka yar haddaad isticmaalaysa wuu gubayaa haddaan kuu sheegayaa markaad gadanaysa iska fiiri cabdicasiis wuxuu ka dhawaajiyay shirkadaha maad madoodaan aan dantiinu ku jirin haddaan madowno maana bali bay noqonaysaa wadnaan idin caddaynanaa qiimaha rabnaan idinku dhufananaa haddaan madowno inaanu kala qaybsanana dantiinu ku jirtaa taa intaas ka gudbay laakiin wuxuu soo qaaday solarka waxaa tiri markaan anagu xiro waxaad rabtaa marka ay qorraxdu joogto ee ay dheeriga tahayna inaad aniga igu soo darto ood saacaddaad dhinaca kale u wareejiso markay qorraxdu kugu yaraato inaad saacad aniga iga soo qaadato aad xagga kale u wareejiso waxaa tiri adduunka incentive baa lagu bixiyaa waa run laakiin yaa incentiveka yaa inay dhexdhexaadinaya labadeenna dowlad adna sibaad waxu rabtaa adna sibaan waxu rabaa haddaan la helin dowlad waxaan dhiiri gelisa oo incentiveka bixisa oo tiraahdo war dadkan carbon dioxide-kan laga yareeyo oo solarka loo guuro oo adiga qiime kuu dejisa oo aniga qiime ii dejisa haddaan dowlad la helin labadeenna heshiin mayno 99% of the time waxaan korka ku soo koodayaa korontada waxaa tiri korontada jingadaha la geliyo korontada jingadaha la geliyo waa meesha ugu riskiga badan waa meesha ugu badan dhimashada xamar ka dhacdo waa meesha ugu badan gubashadu ka dhacdo waanu ku celcelinay haddeerna waan ku celinayaa war dadka jingadaha deganow korontada fiiradan qaawan iska daayo tuuba geliya lacag badan ku darsamaysa caruurtii naftada ka miibsanay warba horta tuuba dhex geliya labo fiirada 1-to-1 ka yara saqiirka gebigeeda haddaan saa u kala jida kala go'aysa war iska daaya ilaahay baa wax bixiye fiirada fil sacuudiga la yiraahdo xogaa yara adag fiirada qaato free wire guriga ku gelinine wax si dhex geliya war shirkadahawna war de guriga aan si fiican korontada ugu jirin hor ilaahay ka boqo dadka ku dhameynina korontada gelinina waa ka baxay cabdifatax maxamed cabdulle bogaadinta una bogaadiyey iyo commentigiiska fiican u dhibtay waa hale waa mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan u guuro oo shirkaduhu socdaan teknolojiga ugu quruxda badan ugu fiican standardka insha allah mustaqbalka shirkad walba waxay ku howlan tahay sida wixda teknolojiyada ugu quruxda badan u isticmaali lahayd taa intaasaan kaga gudbayaa saaxiibkay suudow arrintiisa waxaa ka jawaaban jireen maxamuud laakiin hal su-aal ah war dadka idin dhexeeya idinkay dadka idin dhexeeya oo shirkadda ka tirsan ma jiraan xafiisyo dhan baa jirta qayb dhan baa jirta public relation baa la yidhahdaa waxay ka shaqeeyaan sida qofka customerka lagu xallin lahaa qolaa waxay ka shaqeysaa qofka customerka dabka loogu xir lahaa qolaa waxay ka shaqeysaa lacagta looga soo qaadi lahaa laakiin qolada ugu awoodda badan shirkadaha waxay ka shaqeeyaan customerkan sida cabashadiisa iyo waxa uu qabo loo xallin lahaa boqolkiiba 70 ilaa 75 waxaa isku dayna qof kasta inaan qancino bini'aadanka lama qancin karo qofka bini'aadanka waxaa qancin kara bini'aadanka waxaa qancin kara in ciidda lagu shubo laakiin inta ka horse anagu waan dadaalaa boqolkiiba 80-90 dadku inay qanaaco ku tagaan taana intaasaan kaga gudbayaa arrinta ah cabdikariin cali nuur saaxiibkay saaxiib arrintaas sacda injineerka ka jawaabay cid inoo dhaxaysa inaan helo waysaan wax u kala qaadano systemka kolba dowladeed ee waddanka wuu korayaa sharciyaa la ansixiyey nidaamaad baa jira insha allah waxaan rajaynaa mustaqbalka 10 sano soo socda wax badan inay regulationska iyo standardkeena aynu ku dhaqmi doonaa wax badan isbedeli doono laymanka maxaa wax isugu dari weydeen waxaa jirta qorshayaal badan oo la wado oo ah in laymanka la mideeyo oo dowladuna ay qayb ka ahaato shirkadaha u dhaxayso systemkaasina waa system dowlo procedure badan buu marayaa nidaamaad badan buu marayaa iyaduna way socotaa insha Allah tacaala laymanka waa la qurxin doonaa inta aanu hadda qurxinay bilaa calaykum 2011 14 18 iyo maanta laymanka xamar ka jira isu fiiriye farqi badan baa u dhaxeeya qof kastana wuu garan karaa farqi meesha jira marka waan dadaalay inta u dambeysana dadaalkana waa wadnaa insha Allah tacaala dadka Soomaaliyeed la xajaalan kaleena iyagaanu shirkado ku nahay
iyagaanu magaca ku leenahay iyagaanu adeegna xaja alla badan baa naga haysa naftooda iyo ubadkooda iyo maalkooda inay badbaadaan annaga waan ka shaqaynaa laakiin waxaa mas-uuliyadda koobaad iska leh ninka guriga iska leh ayaa waxaa laga rabaa siduu biilka ciyaalka uga fikiro inuu khatarta korontada guriga dhex taalna siduu ciyaalka uga safgarayn lahaa ka fikiro asalaamu calaykum dhegeystayaasha markii aan baahinayn ayna soo weydiiyeen dadka qaar ee ku nool degmooyinka waa beri xamar jajab xamarweyne ilaa iyo shangaani waxay ka cabanayaan inaysan access u lahayn inay beeka iska bixiyaan haddii ay dhib u arkaan haddii ay iska bixiyaanna ceelkii macaanaa ee meeshaas ka jiray idinka aad leedihiin oo biyaha aad ka jaranaysaan arrintaas wax ka dheh bismillah arrintaas su-aasha haddaan toos uga jawaabo beeko biyo kama ganacsato annaga waxaan ka ganacsanaa waa koronto korontada iyo biyuhuna iskuma xirna qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu korontada uu rabo helo hadduu uu korontada ka maarmo oo yara uma baahanin uu iska goyn karo hadduu raban uu qaadan karo korontada iyo biyuhu iskuma xirna beekana biyo kama ganacsato taas intaasaan oga bixi lahaa waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo horta aadan uga mahad celinaya tiimka doodan ka qayb qaatay qodobkii ahaa wacyigelinta runtii haddii maanta aan ka doodayno oo aan isweydiinayno korontadu waa qaali shaygaana hadlaysay intay ka baxda aan ka hadlayno waa alxamdulilah haddaanan ka wada hadlaynin dalku koronto ma laha koronto nagu filan ma hayno maanta waxaa warshada ugu weyn ee xamar maanta ka jirta warshada birta samaysa waa warshada birta samaysa ilaa iyo qofka jaajarka isticmaala maanta wuxuu heli karaa koronto ku filan taa horta waa alxamdulilah haddaan dhinaca kale soo aado dadkeennu inta badan waa danyar dadka danyartaana waxay xoogga saaraan inay isticmaalaan qalabka midka ugu lacagta yar arrintaa marka waxaan rabaa markay koronto joogto inaan quality gortan laga gelin waxa kale ha laga galo laakiin markay koronto joogto waa inaan quality-ga gortan laga gelin oo qofku uu isticmaalaa doobareeska ugu fiican fiirada ugu fiican nalka ugu fiican si asagana khatar uga badbaado qalabkiisana u badbaado waxaan kaloo rabaa inaan ku daro meeshaas oo pointigaas aan rabaa inaan kusii kordhiyo korontada marka la isticmaalayo qof walba dadku Soomaalidu wax beeqaamiyaan korontada lama beeqaamiyo bishuu sugaa marka loo soo qoro waxaa jirta qofku qabo ku ogaan karo wuxuu isticmaalayo meeqa waadaan isticmaalay shaygan isticmaalay meeqa waad waaye waxa arkaysaa qof soo gadanaya AC 2400 waad ah isagoo awood inuu mid 1200 waad u xirto waxa arkaysaa qofka mugtahay waadka shayga isticmaalayso iyo way isku xiran yihiin wax asaar doonto marka qofku inuu ka fakaro oo uu fiiriyo wuxuu isticmaalayo iyo hours-ku isticmaalayo taas aad aamin kartaa isticmaalkaaga aad u mahadsantiin waan kaga mahad celinaynaa dooda iyo sida su'aalaha wanaagsan aan weydiiseen waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala dooda damo aan isku imaan doono ama marka kale aan kulmi doono inaan ku kulmi doono mid tan ka wanaagsan qiimo kan ka jaban koronto tan ka tay wanaagsan cabashooyinka jira oo hadda la tabanayo horumar laga gaaray dadka laga wacyigeliyay insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa in dadweynaha Soomaaliyeed u shaqeynaayo inaan ayaga insha Allah tacaala aan sida ugu macquulsan ugu adeegno dhinaca korontadana aan ka qabtirno haddii ilaa yiraahdo aad u mahadsantiin aad iyo aad ay u mahadsan yihiin guud ahaan daawadayaal dooda intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaa marti inoogu ahaa cabdikariin xuseen tuuxo oo ka socday shirkadda korontada ee Blue Sky Energy waxaa kaloo inala joogay axmed cabshakuur cumar oo loo yaqaano jubba oo ka socday muqdisho power iyo cabdinuur cali xuseen iyo injineer maxamed faarax cali oo iyana ka socday beeko waan idinkaga mahad celinaynaa dadkii hoolkii inala joogay iyo dadka si toos uga socday baraha bulshada ee warbaahinta goobjoog YouTube Facebook nabadgelyo